marka hore kusoo dhawaaw waxaad ku cusub tahay horyaalka Soomaaliya sidoo aragtaa inaad kusoo biirto ama aaleyso koox ka dheeshay horyaalka Soomaaliya runtii waa wax wanaagsan waana ku faraxsanahay waxa macluum noqotay kooxda Elman Sports Club oo ka mid ah kooxaha ugu guulaha badan Soomaaliya sidoo aragtaa kusoo biirista Elman runtii waa ku faraxsanahay waa kooxaha ugu magac weyn maxaa la dhahaa dalka horyaalka special Soomaaliya weligeed waxay ku jirtay Serie A marka waxaan rajeynayaa maxaa la dhahaa natiijo wanaagsan Elman maxaa la dhahaa waa kooxaha ugu waaweyn dalka waa koox jirtay muddo 30 sano ku dhawaad marka kooxahaas oo kale runtii way qiimo badan yihiin kusoo biirintoodana runtii waa maxaa la dhahaa wax aad u weyn waxna ka dheeshaa maxaa la dhahaa horyaalka koowaad marka waa wax fiican Elman waxa lagu soo biiday dhis aad u ballaaran haddaba maxay tahay isbeddelka muuqda ama taaban karo aad kusoo kordhisay kooxda runtii hadda ma la sheegi karo isbeddel la taaban karo laakiin waxyaabahan ku fakarayna waxay tahay ciyaartooyda Soomaaliyeed qaasatan kuwooda oo tayada leh inaan uga faa'iideeno aan siino fursado ay ku dheelaan isku soo bixiyaan midba midku ka da'da yartahay midba midku ka da'yar yahay midba midku maxaa la dhahaa ka aqoon badan yahay marka waxyaabahan isla oo ku soo biiriya waxay tahay uga faa'iideysiga dhalinyarada iyo waliba maxaa la dhahaa banooni qurxoon ay dheeli karaan banoonigaas oo waliba leh natiijo fiican waxa kooxda xagaagan ku soo biiray ciyaartoy badan oo cusub sidoo kale adiga ayaa ku soo biiray kooxda ku cusub oo leeyahay kooxda haddaba ka waran sida qabsiga ciyaartoyda guud ahaan ama kooxda guud ahaan runtii markay maxaa la dhahaa uu dhacayo isbeddel saan oo kale ah oo ku dhacayo ciyaartoyda oo ku dhacayo macallimiinta runtii waxay leedahay saameyn marka xoogaa waqti fiican waa isla helna hadda laakiin de wali waxa weeyaan waxay u baahan tahay dib u dhiskii aan wali wadnaa marka insha Allah waxaan rajeynaynaa faa'iidooyin inay ka soo baxaan bari waxay kooxdaada wajahaysaa dhigeeda Muqdisho City Club ama MCC maxaa ka rajeynaysaa kulankaas MCC waa kooxaha ugu waaweyn dalka waxay wadataa magac dhan oo magaalo madaxda intaas oo kaliya ma ahan labada kooxood waxa ka dhaxeeyo wax la dhaho derby magaalada Muqdisho ay ka dhisan yihiin meelo waliba isku dhow marka runtii waxaan rabno waxa weeyaan natiijo fiican inaan ka helno ayakana natiijo fiican ay rabaan inay helaan marka waxaan rajeynaa inay maxaa la dhahaa isku dayno inaan natiijo fiican ka helno qaasatan gool inaan ka helno okay kulanka bari ma jira ciyaartooy dhaawac kooxda kaga maqan ama ku soo guddoon kulanka runtii dhaawac zaa'ida wax ku maqan ma jirto laakiin xoogaa laba ciyaartooy waxa laga yaabaa xoogaa yariis inay wax tabanayaan oo mid kamid ah yahay Xamdaan marka waxaan rajeynaynaa maxaa la dhahaa inuu recovery week ka soo socdo oo helo ugu dambeyn waxa uu baaqi lahayd jamaahiirta taageera kooxda Elman runtii banoonigu waxba ma ahan taageero la'aan marka waa loo baahan yahay taageeraheena inay maxaa la dhahaa garab istaagaan nacaawiyaan nariixaan waxay isleeyihiin maxaa la dhahaa nagu soo darsan karaan maxaa la dhahaa waa u baahannahay laakiin waxyaabaha ugu weyn oo uga baahannahay anaka waxaa waayaan inayna garab istaagaan especially maalmaha aan dhacayno kooxaha waaweynka sida maxaa la dhahaa Muqdisho City Club kaleeto okay waa maasanta aad mudan